saaxib maxaa ku helay yaa waxaan ku iri marka seexan ayahay dhunkani laakiin ma ku dhukan kara marka soo jeedo maya saaxiibadu ma aha inay ismulkadaan waayo maxaa sababay waan ku jeclahay doosum aad ma jeceshahay waan ku jeclahay saaxiib ahaan waxaad jeceshahay saaxiib ahaan iyo inaad qof jeceshahay waa maxay farqiga u dhaxeeya doosum waxaad tahay saaxiib la yaab leh waana qurux badan tahay dhaqankaagan wuxuu eeg yahay ilmo yar run ahaantii waxaan ahay daacad laakiin aad maxay jeceshahay sababta ayna tahay doosum haddaba waa maxay sababtu laakiin way adag tahay inaad taa ka jawaabtaa waxaana dareemayaa erey kastoo aad ku hadlayso waqti hore ma xasuusatay inaad warqadii qortay maalintii dhalashadayda warqad haa markii aan ku jirnay dugsiga hoose waa markii wax waliba ay foodo ahaayeen inta aanan qaangaarin mar ayadu warqad ii qortay xasuuso laakiin maxaan kugu qoray warqadda kulankaaga waa waxa ugu cajiibsan noloshayda ayaad ku qortay warqadda allah taasi waa weeraan ka akhriyay sheeka abuurkaygaan jeclaa waagaas waxay ahayd jumlad raad ugu raabtay markaas ayaan warqadda kuu qoray alla waa xasuusatay saaxiib laabtii geli maxaa samaynaysaa nima yahow goormadii barasa saaxiibta jiya fadnaysu jiya kan waa saaxiibkay juusi aniga iyo isagu waxaan nahay dad saaxiiba ilaa yaraanteennii ilaa haddana waxaan nahay dad isjecel juusi maxaa samaynaysaa labadiina waxba ma doonaysaa inaad keeg wada cuntaan haa keega waan jecelahay doonsu maxaad doonaysaa adiguna inaad cuntin anigana keeg waxaan rajaynayaa inaad siraacno juusi si kastaba ha ahaatee waa inaan war xun loo sheegin jiya waxaan u malaynayaa inaan qofna jiya xun u sheegay daasam maxaad u fikiraysaa adi waa fikiraysaa soo maaha adisee ku ogaatay taas jiya waxaad u eg tahay qof dumaro fudud laakiin waxaad tahay gabadh aad u aqli badan saan u jecelahay keega maalin kasta waad cunta miyaa waad jeceshahay keega haa waa maxay sababtu qolka mushqushaan aadaya sidaan wax ugu sheegaa maxaa jira labadiinu waa inaad taxadartaan oo maxaa dhacay waxaa jira warar sheegay in labadiinu aad tihiin kuwa isjecel taasi waa runtee maya xantani waa halis ilaa hadda waxun kuma arag jiya waa gabar qurux badan oo kalgacayl leh way igu adag tahay inay dhahdo tan waa maxay taasi saaxiibaday waxay igu yidhaahdeen waxaan aragnay jiya iyo adigoo isdhunkanaya taasi waa tay jiya ay dhukatay markaan hurdaayey oo ma ku dhunkatay aniga ma garanayo waxaase u malaynaya inay dhukatay maxay uga jeedaa maya jiya waxaan saaxiib ahayn ma nihi umana qabo jacayliyada laakiin ma ku dhukan kartaa saaxiibtaa jiya bay dhukatay markaan hurdaayey si kaftana mayla kaftamaysaa iminka waxaan sameeyo ma garanayo daasam xaggay aaday ma garanayo isagaana la soo hadlaye marxaba waxaana u sheegay asxaabta kale inaydan ahayn kuwa isjecel laakiin waa isjeceshihiin daasam maxaa kugu dhacay daasam gacantaadan iga daa imise jeer ayaad dhukatay marka seexday 5 jeer oo may dhukantay markii dadka kalena daawanayeen ii jawaab haa waan ku dhukaday oo miyaa waalan tahay waan ka xumahay doosum hadda kadib ma samaynayo gacantaadan iga dayso hadda kadib ha itaamani ha iska dhigin inaad garanayso taas waan ka xumahay hadda kadib ma samaynayo doosum waan ka xumahay saaxiib waan ka xumahay